السلام عليكم كلنتي wanaagsan ku soo dhaw muuqaalkii toddobaad oo kamid ah casharada Photoshop-ka bilowgaha muuqaalkan wax kaga hadli doonaa basic shortcuts-ka ama wax loo yaqaan shortcut-yada asaasiga ah ee u baahan yahay qofka Photoshop bilowga ah inuu ogaado taasoo u suurta gelinaysa inuu shaqadiisa effective ama maxaa ku dhahday waqti kooban oo ku qabsado waxyaalo badan u suurta gelinaysa waxaan ku arki doonaa muuqaalkan insha Allah 12 shortcut 12ka shortcut waa 12ka ugu muhiimsan oo basic ah markaan u bilowno waxaan u baahanahay inaan soo furno file-keeni koowaad file-keeni aan ugu talagalay tutorial-kan waxaan ku bilaabaynaa shortcut-ka ugu horeeya waa shortcut-ka koowaad aan ku soo furayno file-keena caadiga aan ku soo furayno marka shortcut koowaad wuxuu noqonayaa open markaad soo furaysid inaad file tagtid oo sii dooratid xogaa waqti qaadanaysa laakiin inaad si dib yar u soo furto waxa qabanaysaa control iyo o bas qabanaysaa markaas waxa soo dooranaysaa file-kii dib wax taysa folder-kii oo kale direction si dooranaysaa basic shortcuts baa taysa file-ka soo furaysaa open baa leeyahay soo furmay file-ka markuu inoo furmo open saas oo soo furtay waxa qabanay control iyo o tan waxa soo dooranaysaa file-ku meeshii yaala saas uu soo furmay waxa weeye shortcut-ka ugu horeeya basic ah qofka u baahan yahay inuu fahmo waxa ku xiga shortcut-ka labaad uu noqonayaa undo ama maxaa ku raadayay hadii aad tusaale ahaan wax ka bedeshid arabtid inaad dib u laabatid tusaale ahaan koobkan madow hadaan jiido halka geeyo waxaan u baahanahay inaan sidiisii ku celiyo meeshiisa hadaan soo mouse ku soo jiido halka keeno waxay kuma aadin karo marka qofku wax way bin aadan sidiisii exact kuma keeni karo laakiin hadaan halkan geeyo waxaan u baahanahay inaan meeshiisa ku celiyo waxaan dhahayaa control iyo set bas la qabanay meeshiisa ku noqonaya undo saas loo isticmaalaa marka oo fiirso hadaan celiyo mar labaad ka jiido markana kan soo jiido oo control set dhaho taban hal mar buu control set dhahaya hadda buu dib u noqonaya hadaan u baahanahay inaan laba jeer noqdo labadan file baan ka xayay tusaale ahaan kan halka geeyay kan halkaas aan geeyay hadaan rabo mid walba inaan meeshiisa ku celiyo laba jeer aan dib u tallaabsado waxaan dhahayaa control alt z baan dhahayaa markaas aan qabanay control alt z hal mar baan taabtay mar labaad hadaan sii taabto step laba dib u qaadaya control alt z control alt z step saddex saasumbu marka u shaqeynaya hadaad u baahan tahay inaad dhowr jeer dib u tallaabsatid control alt z ma qabanaysaa hadaad hal mar u baahan tahayna control iyo z bas la qabanaysaa shortcut-ka saddexaad wuxuu noqonayaa zooming ama markaad wax soo zoom gareynaysid soo dhaweynaysid u baahan tahay inaad file-kaaga soo zoom gareysid sidee u soo zoom gareynaysaa waxa u soo zoom gareynaysaa waxa taabanaysaa keyboard-kaaga z baa taabanaysaa z waxa ku activate gareynaysaa zoom toolka hadaan soo click siiyo markaa uu soo zoom gareysmay file-kaygii uu soo soconayaa uu soo soconaa sii wado hadaan rabo inaan dib u celiyo maxaa sameynaya altaan qabanaya then si fiican u fiiri cursor-kii meesha plus-ka ahayd korna alta qabto manus isu bedelaysaa dhagbaan siiyay waa soconaya waa si dhagbaan siiyay oo si yaraanay hadaan u baahanahay ka waran inaan in yaro kooban hal mar soo zoom gareysto in gaar ah soo caleenta soo galay hadaan rabo inaan soo zoom gareeyo waa ku jiiday intaan u baahanahay waan dhid siinaya oo ay soo baxaysaa meeshaan u baahanahay ku soo jiidaya waa ku soo jiiday oo soo zoom gareysmaysa koobkan kana u baahanahay waa ku soo jiidaya oo zoom gareysmaysa hadaan dib u celiyo zoom ka xagga banaanka u jiido hadaan u soo jiido xagga suke hadaan mouse-ka xaggan u jiido waa yaraanaysa hadaan soo jiidana waa soo weynaanaysa ka waran hadaan shortcut ahaan rabo inaan hal mar step u soo weynayo waxaan qabanayaa control iyo plus bas qabanaysaa keyboard-ka control iyo plus hadaan minus dib rabtid inaad celisidna control iyo minus bas qabanaysaa control iyo minus wax kale oo isticmaali kartaa hadii aad mouse external isticmaalaysid ama aad computer-ka uusan laptop ahayn oo mouse banaanka yaal isticmaalaysid waxa qabanaysaa alt dan waxa qabanaysaa scroll-ka hadaan xaggay maxaa ku dhahay gudaha u soo jiido uu fogaanaya zoom out u noqonaya zoom in waxay noqonaysaa alt isla sidii iyo scroll-ka aad banaanka u saartay xagga u jiid wad soo hadaan soo celiyo scroll-ka soo celiyo uu fogaanaya hadaan sii xagga hore u celiyana uu soo dhawaanaya qaabkaasna wuu isticmaali kartaa hadaad wax kale oo isticmaali kartaa control iyo o oo waxay ka dhigan tahay in file-kaagii screen-ka ama maxaa ku dhahay workspace meesha ku shaqeynaysi in file-ka fit kaga dhigto
waxaa qabanaysaa control tusaale ahaan haddaan halkaas kale ii joogo faylkaygii aan control iyo o isla qabto waxay ka dhigan tahay inaan fit ka dhigo screenka fit kaga dhigo ka war haddaan u baahnaa boqol soo zoom gareeyo waxaan qabanaya control iyo 1 faylkaygii dabcan halkaa fiil meesha zoomka soo saartay panelka wuxuu ina tusayana faylkayni boqol soo zoom gareysan yahay hadduu weyn yahay hadduu xoogaa shishada jira ka waran 30 yahay haddaan control iyo 1 isla qabto wuu soo dhawaanaya taasna waxa weeye zoomingka waxaana u muhiimsan inaad isticmaali kartid maxaan ku dhahay waxa loo yaqaan zoom toolka iyo shortcutyada aan isticmaalaynay shortcutka saddexaad wuxuu noqonayaa wax loo yaqaanay alignment ama aligning haddaan ka waran waxyaalo badan tusaale kuwan oo kale hadii saa isku yaacyaacsan ka soo qaad haddaan u baahanahay tusaale ahaan inaan hal mar isku aadiyo oo aan sameeyo inaan hal line wada geliyo waxaan u baahanay ama tag ka dhigo ama chief u taxo saan u baahanay saan rabo ka dhigo waxaan dooranayaa file waxaan dooranayaa objectigan u baahanahay mar kastana waxaad ogaataa markaad isticmaalaysid ama wax select gareynaysid in move toolka ku activate gareysan yahay isla markaana auto select ay check ku saaranta waxyaabo badan bay ku fududeynaysaa auto select marka iska hubin ay check ku saaran tahay waxaa qabanaysaa marka kana dooranaysaa waxaa qabanaysaa shift kana waa doortay kana waa doortay kana waa doortay waxaan u baahanahay marka inaan align gareeyo oo hal line ku taxo intaas waxaad tagaysaa gorta intaas ku wada dooran iyo kuwa select gareysan waxaad tagaysaa control panelkaaga waxaad dooranaysaa marka align center vertical center aba ka doonaysa iyadoo align oo waxay tahay waxa ku raacay vertical ama horizontal inta baad click siiyo waa align gareynaya dabcan koobkaysi siman baa la isla kaysiiyay qaabkaas aan ku align gareyn kartaa haddaan u baahanahay ka waran inaan u sameeyo space ka hadda isu jiraan oo kala fog yihiin soma haddaan u baahanahay inaan space u dhaxeeyo iswada la kaysiiyo waa select gareynaya kulligood horta hal mar hortaan wada select gareeyo baan waxaan ku dhufanayaa waxaan qabanayaa waxaan taabanaya buttonkaas la control button ka tago distribute horizontal center baan click siinaya wuxuu isla ekaysiinayaa space kan iyo kan u dhaxeeya isla yihiin si isla eg bay u taxmayaan markaas qaabkaas oo align gareyn kartaa haddaad u baahantahay inaad vertical ka dhigtid waa helaysaa intaba haddaad u baahantahay inaad dhinaca ka align gareysid intaba waa kuu suurtageli kartaa marka isku day inaad practical samaysid waqti fiican aad siisid inaad waxyaalaha base-ka oo shortcutyadaas aad isku dayid in aad u sameyn kartid si ay kugu fududaato hadhow isticmaalkooda shortcutka ku xiga wuxuu noqonayaa wax loo yaqaan rulerka tusaale ahaan haddaan u baahdo mastaradii inaan wax ku isticmaalo oo maxaan ku raadayay wax ku toosisto waxaan sameynayaa inaan mastarada soo gashto waxaan qabanayaa control iyo r ma isla qabanaya control r markaan qabto waxa ii soo baxaysaa meesha mastarada ka soo qaadan lahaa tusaale haddaan kan soo qabto mastarada waa taasoo kalan ka soo jiidan kara xaggana waa ka soo isticmaali karaa mastarada waxaa isticmaali tahay waxyaalo ku siito oo kale haddaad tusaale kuwan oo kale inaad align gareysid adigoon alignment isticmaalin inaad saa u samaysid saa isugu aadaadisid tusaalehaan saas kale inaad qaabka isugu aadaadisid markaas qaabkaas ay kuu suurtagelinaysaa mastarada waxaa usoo gelin kartaa control iyo r haddaan ku celiyo waa baxaysaa haddaan control iyo r bisna qabto soo noqonaysaa marka shortcutkaas waa muhiim shortcutka noogu xiga wuxuu noqonayaa cropping haddaan rabtaan faylka inaan intaa jaro si aan u crop gareeyo waxaan taabanayaa just u activate gareeyo crop toolka c baan taabanayaa control waxba la qaban c only baan taabanayaa keyboardkayga c crop toolka way activate gareysan yahay intaan rabaan jaraya markaas then baan waxaan leeyahay confirm saasaan ku taabanaya marka marabna inaan hadda jarno kan noqo move toolka noo activate garee shortcutka ku xiga wuxuu noqonayaa foreground iyo background colorka shortcut laba shortcut oo muhiim ay leeyihiin haddii ka waran foreground-kan iga bedelan yahay oo isna background-kan iga bedelan yahay wax kale iga yahay tusaale cagaar yahay waxaan rabaa inaan defaultigiisa ku celiyo defaultigiisa aan ugu celiyo just wax kale ma sameynayo wax taabanaya d oo keyboardka ah sidii hore ku noqonay defaultigu muxuu ahaa black and white buu ahaa d haddaan taabto si fiican u fiiri d haddaan taabto sidii ku noqonaya tusaale casaan buu ahaa kana cagaar buu ahaa haddaan d taabto default sidii ku noqonaya haddaan rabo ka waran inaan isdaba mariyo madowgana background ka dhigo ka cadaanka ana foreground ka soo dhigto soo dhaafiyo wax taabanaya only x keyboardka x baan taabanaya xarafka x baan taabanaya waa isdaba maraya x hal mar baan taabto isbedelay haddaan ku celiyo way sii bedelaya haddana meesha sidiisa ku noqonaya
marka qaabkaasna waxa u isticmaalaysaa foregroundka default markaad ku celinaysid haday ka bedelmaan d baad taabanaysaa hadii kale waxaad taabanaysaa x shortcutka ku xiga wuxuu noqonayaa layerska tusaale ahaan halkaa waxaa igu jira layers fara badan oo dhowr ah haddaan u baahanahay kasoo qaad inaan hal mar wada select gareeyo dhowr layer waxaan qabanayaa kan oo kale aan taabanayaa shift anoo haya baan kan ku darayaa shift anoo haya baan kaa ku darayaa shift anoo haya baan kaa ku darayaa si fiican u fiiri waxaan qabanayaa shift waxaan qabanaya horta mid baan select garanayaa markaan select gareeyo baan shift qabanaya halkaan qabanaya kana waa dhag baan siinaya shift baan hayaa kana dhag baan siinaya marka shift markaad haysid oo mid kale select gareynayso waxay kuu suurtagelinaysaa dhowr layer isku darteed ay markaa ku noqdaan wax aad hal mar wada kaxayn kartid oo move gareyn kartid qaabkaas ay kugu suurtagelinaysaa inaad hal mar wada select gareyso shift baa qabanaysaa hadda layerka rabtaa ku daraysaa marka layerka hore oo kuu doornaa haddaan u baahanahay ka waran kan inaan duplicate gareeyo ama laba ka dhigo koobiyo waxaad samaynaysaa alta inta qabatid baad move ku jiidaysaa alta qabanaysaa dabcan u fiirso mouseka wax soo baxaysa laba xabo wuxuu noqonayaa hal cadaan ah iyo hal madow mouseka caaladiisa fiir move toolka alta markaan qabto laba noqonaya laba markuna waxay ka dhigan tahay haddaan wax ku jiido laba ka dhigaya tusaalahaan kan madow haddaan alta inta qabto hal mar jiido koob uu noqonaya sidaas oo koobin kartaa kan oo kale haddaan rabo inaan koobiyo altan qabanaya waa ku jiidiya kan oo kale haddaan rabo inaan koobiyo altan qabanaya waa ku jiidiya markastana fiiri layerskaaga layer panelka tusaalahaan haddaan kan oo kale koobiyo waxaa ii soo baxaya koob blue oo koobi ah soma haddaan ka noqdo fiiri haddaan koobiyeyo kii originalka ahaa blue baa soo baxaya koobigaas wuxuu ka dhigan yahay layerkan ka hooseeya ee koob blue ku qoran tahay isagoo koobiya halka yar qaabkan u koobinayn wuxuu noqonayaa alta dhamaan diraaganaysa ama waxaad samayn kartaa adoon alta qaban waxaad dhahaysaa control iyo j control iyo j waxay kuu suurtagelinaysaa inay horey ka duplicate garayso control iyo j baa isla qabtay laba noqday labada marka kuma tusayo isagoo waxay noqonaysaa inaad kala qaadi iskor saaraya waa jiiday laba noqday tusaale kan hadda waa xabad haddaan inta doorto control j dhaho labo ka dhigay hortaan qaado mid kale ay soo baxaya marka qaabkaana waa u koobin kartaa layerada multiple layer haddaan u baahanahay maxaan ku rahdaa inaan isagana duplicate gareeyo isla intii waa dooraysaa qaabkan u select gareynayna waa xasuusataa waxaan sameynaynaa shift aan qabanaynaa labadaas select gareynaa si aan u koobiso isla sidii ama control j baa dhihi kartaa ama maxaan ku dhahay alta qaban kartaa waa drag gareyn kartaa qaabkaa waa samayn kartaa duplicate hadba inta kuu dooran hadday 20 kuu dooran tahay oo alta la qabatay ku drag gareysid waxay noqonayaan maxaan ku rahdaa ku bismiyeen hadday xabad ku dooran tahayna waa ku bismiyeysaa qaabkaana waa loo koobin karaa haddaan u baahanahay inaan group gareeyo ka waran shaqada waa badan kartaa hadda aad bay u kooban tahay halka inuu ku jiro layerada waxaa laga yaabaa inaad 150 layer kaasoo dhex galaan halkaasoo hawshii badato oo wixii maxaan dhahay layer baan halkii kaa buuxsamo oo scroll soo galo si aad marka u koobtid waxa u baahan inaad group gareysid si aad u group gareysid marka waxaan sameynaa inta rabtina isku aad sidoo kale aad tagaysaa kaasoo click siinaysaa shift baa qabanaysaa ilaa kaasoo kale rabaa inaan group gareeyo ka wada dhigo wax wada socdo hal folder wada jira control iyo g baan qabanayaa saas ku group gareysmaya si fiican u fiiri intaan select gareeyo kan u horeeya baan qabanayaa shift baan qabanayaa kan u hooseeyaan tagayaa marka intaa isu kay raacdo iyo wada select gareysan tahay baa control g hal mar dhaaya qaabkaasaan group u samayn karaa layerka maxaan ku dhahday shortcutka inuu ku xiga ee sagaalaad wuxuu noqonayaa image size markaan rabo inaan arko ama maxaan ku dhahday wax loo yaqaan imageka cabirkiisa inaan arko only waxaan dhahayaa control alta iyo i baan isla qabanayaa control alta iyo i waxay ii suurtagelinaysaa inay ii soo saarto image sizeka meesha laga bedelo ama uu ka muuqan ama aan ka arki karaba haddaan u baahanahay wax ka bedelana uga bedeli karo haddii kalena aan u isticmaali karo inaan ka arko only shortcutka tobnaad isaguna wuxuu noqonayaa haddaan u baahdo in aan shaqadayda markaan dhamaysto inaan si fiican oo clear u fiirsado oo maxaan ku rahdaa masteradan iyo paneladan toolska waxaas layerka kulli aan iska wada qariyo oo si fiican u fiiriyo oo dabcan aan u tago full screenka oo viewgayga si fiican u arko waxaan dhahayaa taabanayaa marka f baan taabanaya f haddaad taabatid hal mar qayb bay kaa saaraysaa haddaad sii taabatidna kulli waa kaa wada saaraysaa control r iska dhe waliba rulerka xataa iska qari qaabkaasaa u arki kartaa marka maxaan ku dhahay
full screen ka saari kartaa. Shortcut-ka 11aad wuxuu noqonayaa haddaan u baahdo faylkayga tusaalaha inaan rotate gareeyo oo si maxaan ku rahday ama ka dhigo haddii chief oo kale dan tag u baahdo inaan ka dhigo isagoo isla design-ka u samaysan. Dabcan waxaan tagayaa toolkan, waxaan soo qaadanayaa toolkaas oo wuxuu ii activate garanayaa rotate view toolka oo ina caadi rotate gareeyo ama hal mar baan R taabanaya. R markaan taabto waxa ii soo baxaysa rotate toolka marka waa ku wareejinaya intaan rabo. Tusaale saa u rotate gareeyo waxay ii noqonaysaa qaabkaan rabo ama meeshaan aadayo inuu rotate gareeyo aan anigu control si baan ku celin karaa. haddii kalena halka kore fiiri halkaas aad cabirka u baahan tahay gelistaa 9 haddaan geliyo inaan 9 rotate gareeyo dabcan 9 saas u noqonaya waa vertical. haddaan u baahdo -90 inaan geliyo isagana waa gelinaya oo dhanka kale u rotate gareeyo. haddaan 170 geliyo sidoo kale iyadana waa gelin karaa ama waxaan isticmaali karaa toolkaygaas caadi oo rotate gareysan karaa oo saasaan wadi karaa. ka war haddaan u baahanahay inaan cabiro khaas boodo tusaale shift haddaan qabto wuxuu wareegayaa 15 degree buu isu rogayaa 45 buu joogaa wuxuu noqonayaa 60 75 90 105 qaabkaas u soconaya adoo shift haya. hadaad u baahan tahay inaad sidiisii ku soo celisidna meesha kore reset view baa hal mar klik siinaysaa sidiisa normal qaab ugu soo noqonaya. shortcut-ka inuu ku dambeeyo 12aad wuxuu noqonayaa grids-ka. hadaad u baahan tahay ama aad markaa samaynaysid document ka kooban graph-yo ama waxyaalaha xogaa complex-ah dabcan waxa u baahan tahay grids waxay ka dhigan yihiin inaad la soo baxday laymanka buugta xisaabta oo kale grids weeye. marka laymankaas kale saa la soo baxdid dabcan waxaad taabanaysaa control iyo column baad la qabanaysaa. control iyo column markaan qabto waxa ii soo baxay grids-ka marka waxa laga yaabaa markay ku soo baxaan inaadan color-kaas oo kale ay markaa ku joogaan u boogin ama design-kaagu madow yahay iyagana ay madow yihiin dabcan iskeeni waayaan. marka waxaad tagaysaa edit, waxaad tagaysaa preference, waxaad kasii dooranaysaa guides and green. markaad click siisid waxa ku soo baxay boxkaas. marka boxka waxaad control kartaa maxaan ku dhahay color-ka aad rabto grid-kaagu inuu noqdo maxaan ku dhahay grid line-ka intuu xabo noqon karo iyo inta subdivision laga sii dhex samayn karo. haddaan ka waran ka dhigo 4 xabo wuu isbedelayaa oo intiisii hore markii hore labo ahaa tusaale ahaan labo saas u ahaa dabcan 2 line baa waxay ku jirtaa 2 centimeter baa waxaa ku jira hal grid baa ku jira. haddaan ka dhigo halkii centimeter inay ii gasho 4 halkii centimeter inuu hal maxaan ku dhahay line ii galo dabcan waa samayn karaa. subdivision-kan waa kuwa yarka ka soo hoosanaysan intay noqonayaan. haddaan 10 ka raba ka waran iyagana hoos gelinaya haddaan rabaan gelinaya. marka adaa control kara hadaad color-ka rabtid iyo waxba adaa gashanaya markaad samaysatid dan baa okay dhaysa. qaabkaas marka kugu edit gareeya oo maxaan ku dhahay color-ka aad u baahnayd iyo choice-kaaga aad ku soo dooran kartaa. basic shortcuts-ki 12 ka xabaha intaas ku soo gabagabayn doonaa. muuqaalkan wuxuu ahaa muuqaalka u dhameeyay qaybtii koowaad ee introduction-ka. muuqaalka inoo xiga waxaan ku arki doonaa selection-ka Photoshop-ka marka la joogo marka selection-ka qaabka loo sameeyo oo wuxuu noqon doonaa muuqaalka koowaad ee qaybteena labaad ama essential practice-ka muuqaalka u horeeya marka oo noo kulanto xiiso leh. Assalaamu calaykum.